السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبان إذا إسلامية جودهان إن ميل بتشوفتان سعادة بيدين تاي وإصلاع ويحيس ديني لوا إن عبار كور سوق لني كان جلاس كافراد بيسيجا كانوا كيشانات وحنا رجعنا كانوا كي دمبي هدي له هيراد. And I'm so excited إن عشر دمبي بيسيجا سوق ليو. I'm so excited إن أرتدي بيسيجا هيد أي فلانقينتي إلى بلاويان وإنه أي صوب بلاويان حسدي تلبى عشرة duubnaa galaaskii ugu horreeyay ahaa train marketka waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay arday fara badan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo WhatsApp-ka feedback qurux badan iga soo celinaya iyo inay systemkan anfacsadeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ujeedkayguna wuxuu ahaa inaad anfacsataan mar haddaa anfacsateen maasha Allah dhammaan dhalinyarada kale meel walba joogana waxaan jeclaysanayaa in anfacsadaan insha Allah idinkan baan idinka rabaa inaad faafisaan cashadaas ii gudbisaan idinkana khayr ha idiin noqoto idinkuna wixii aad fahmi weydaan commentiga hoos waayo waxaan ka hadlanaa hadda waxa la yidhaahdo support assistant waxaan u dhacnay suuqii waxaan ka hadlaynaa awal basic waxaan waxay ku dhisan yihiin waxaan waxay yihiin systemkaas kor bin walina moogtahay caawa gudaha soo galnay waana sayni gudaha u galnay hadda kadib waxaan ku jiranaa gudaha hadda waxaan ka hadlanaa waxa la yidhahdo support assistant waa maxay horta support as price selling waxay yidhahdaan price selling and price for waxba ingiriishkaas spelling english macna noo sameeyna saxnayo إن خلنا معناها هي إنه تمرين مهم واي برايس كان هكذا كقرب برجع هلا برايس كان حلو يحلى هذا resistant sport أما سيلنا فرول واي بهرتا سيكولوجي حن واحد حلو وجه يعني فانسيو مركز فانتان كده بوي فلانة ساينا الهشان أو معناها هو صوتان حاجة تدولده إن هذا سومالي مالها لكن حاجة تدولده حليه من دغالي هنا ودغاله العالية تلك وحلقة العالية سعر برارك شعبكو تدكو نوري dadka waa labo ama qof walba marba waasi mar waa iibsade marna waa iibiye niman ganacsataa la yiraahdaa iyaga wax iibiya ama beeraley ha noqoto ama qolo wax usoo goyn ha noqoto kuwa dibadda ka keenay ha noqoto waa iibiyayaal qolana waa iibsato waa intii kasoo hadhay waa intii iyaga ka iibsanaysay marka waxaa jirta marka ka shaqooyinka dowladda waxaa kamid ah inay isku ilaaliso see isku ilaalinaysa waxaa la isku ilaalinayaa lama rabo ninkan iibiyaha ah inuu shacabka dulmiyo ninka diinteena way leedahay oo dhaqaalaha ugu tijisay qaabka wax faa'iido loo saaran karayo ka hadashaa wax walba waa system diinteena mootay dowlad lagu dhiso marka everything dhisme wax walba oo dhisan oo u baahan yihiin wax kala iibsadaa maxaa la sameynayaa labada qof waxa laga ilaalinayaa dulmiga labada waxa laga ilaalinayaa dhibka qofka wax iibinaya lama rabo xoolihiisa laftiisa in loo yimaado inuu wax faa'iido la rabaa iibsadahana waxaa la rabaa in wax uu iibsan wixii wax inuu iibsan karo laga dhigo soo ka soo qaad shayga 5,000 baa la siinayaa shaygan 5,000 la siinayo waa in qofkan 3,000 ay ku fadhido waa in 3,000 laftiisa aan la gaadhin kan iibsanayana waa inuu ninkan 3 jibaal laba jibaal faa'iido ka saaranay 2,000 loo saaray qofkani uu 5,000 ka siiyaa 6,000 ka siiyaa ilaa 7,000 marka waxaa dhacda qiimo jira loo dhaxeeyo marka qiimahaas marka waxaa la yiraahdaa support assistant waxa weeye hadda u galay moogtahay qiimaha lagu ilaalinayo midna iibiya lagu ilaaliyo dowladda xidhanaysa shaygaas 6,000 ka badan lama siin karo sidoo kale hoosna 4,000 ka yar lama siin karo marka lagu leeyahay 6,000 ka badan lama siin karo buyers ka la ilaalinayo waxa la ilaalinayaa shacabka wax iibsanaya awoodooda la ilaalinayo waxa la leeyahay 6,000 ka badan lama siin karo 6,000 ka badato sicir barar baa dhacay qofkii maxaa ku dhacaya lacagtii xagga lacagta u badanaysaa waxa dhacsa qola gaar u faayso maciishada way ka casayo tisciib barka la ka sheekay maayo way kadib maxaa la oranayaa markaa resistant baa la yiraahdaa marka ama price selling baa la yiraahdaa waa meesha qiimaha lagu ilaalinayo ee sare yaa la badbaadinaya marka yaa la ilaalinaya buyers ka la ilaalinaya shaygii lama rabo inay qaali ka dhigaan ma garatay waa xagga sare shayga xagga sare ku soo celinaya weeyaan ma la socotaa shay qaaliga laga ilaalin qaali noqda laga ilaalin qiimihiisa kor u kaco baa laga ilaalinaya haduu mu kacay wuxuu ahaa 3,000 4,000 6,000 mar waxa leeyahay 6,000 ma dhaafin karo way xaga kale maxaa jira qofkan waxa la oranayaa adiguna ma siisan kartid qofkan waxa la oranayaa waxa lafta ku ah 3,000 baa soo ma 4,000 baa laga dhigay 1,000 wuu faa'iidaa hoos baa la soconaya waxa leeyahay marka bahashi isku badato kale alaabta badatay aad bay isku badatay moos ka soo qaad moos iibinay mooskii suuq soo galay waxa la leeyahay 4,000 ka yar
ma iibinaysid sababtoo ah faa'iida loo rabaa beeray kasoo go'een waxba laftii lama rabo faa'iida la rabo in loo sameeyo saata kale maxaa la yidhahdaa falor xagga sare maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa selling ama selling waa support waa wixii shaygii support waa taqaana waa caawiye waa ilaaliye waxaa la yidhahdaa resistant way xagga sare resistant waa meesha la dhaafi lahay waa xagga la diidan yahay support waa meesha lagu fadhiyay waa salkii saa darteed qiimaha waxaa la rabaa inuu intaa ku dhex wareego marka waxaa jirta waa iska garanaysaan suuqu dhaqaaliyahan waa sameeyaan laakiin boqolkiiba boqol lama maamuli karo marar badan baa qiimihii la jabinaya hoos loo dhacay dhinaca loo ridaya dhinaca loo ridaya sarifka marka sariflayaasha waxaa jirta dowladuhu marka waxbaa jira shay baa jira iyagu sidaas oo kale sarif u ilaaliyaan iyaga waxaa laga rabaa dowladdu waxay rabtaa lacagteedani inay jabnaato oo ay u jabnaato inay sarifi karto lacagaha qalaad si dadka dibadda uga dowladaha kale ee banaanka ee dalka wax ka iibsanaya ay wax uga iibsan karaan waxaa kaloo la rabaa inaan lacagtii hoos dhulka gelinoo dee lacagdii bilaa macno aysan noqonoo dadkii ay wax u goyso gudaha ku jiray saa darteed baa bahasha lacagta maxaa udhaxaynaysaa baxaadagaasi ku jiraysaa macna ahaan saas horta laga wadaa marka macna ahaan horta macna ahaan ama behind idea ka dambeysa waxa weeyaan support resistance haddaad maqashid waa meelo la diidan yahay inay hoos u dhaafto iyo meelo la diidan yahay inay kor u dhaafto waayo marka suuqan aan sarifka annagu maxaan ku garaanaa waayo marka inagu maxaan ku garaanaa inagu waxaanu nidhi jaadkan baynu ka hadalnaa halkan baa lagu wada hadlaa inagu marka waxaanu naqaanaa waxaa jirta qaab loo sawiro waxaan isticmaalana waxa la yidhahdo lines ina tusayar qiimaha hoos loo diidan yahay iyo qiimaha kor loo diidan yahay waxaa kamid a waxaan isticmaalno halkaas ku yaalaa horta waxaa qormaya horizontal line baa la yidhahdaa waa kusoo dhufanaysaa markaasaa u dhigtid wakaa qiimihii buu kuu sheegaya halkan maxaa ku qoran qiimihii kana lagu sawirtaa marka see lagu sawirayaa waxaa support loo yaqaanaa halkan meel walba oo laba jeer sinaato waxaa raadinaysaa meel laba jeer laga soo noqdo tusaale ahaan halkan iyo halkan iyo halkan maarata halkan waa support waa loo diiday markana waa loo diiday markana waa loo diiday in qiimaha la dhaafiyo marka waa loo diiday in la dhaafiyo marka waa loo diiday in la dhaafiyo ma ujeeda mar walba imaanaya uu ka kacaya mar walba imaanaya uu ka kacaya mar walba imaanaya uu ka kacaya wala fahantiin maxaa sharciya marka support adigoo support waa salkii baa meel hoos baa loo diiday inuu dhaafo maogtahay waxaa sharciya inaad laba meelood ku sintid suuqa noocan waxaa la yihahdaa ranging market markaan kor ka sawiranayana sidoo kale maxaa sharciya inaan laba meeloo siman yihiin ujeedaa 1 2 3 ujeedaa inta wayna siman yihiin baa sharciya waa meel qiimaha xagga sare looga diidan yahay xaggana waxaan odhanaa waxaa leeyahay ka sare waxaan odhanaa waa support waa resistant waa meel qiimaha xagga sare laga diidan yahay kan hoose waxaan odhanaa waa support waa meel qiimaha laga diidan yahay xagga hoose inuu dhaafo way la socotaa ma jecla waayo suuqa noocan waxaa la yihahdaa suuqa dhinac socodka maxaa nidhi suuqa saasoo kale maxaa nidhi suuqa dhinac socodka suuq kalaa jira marka sida idiin muuqata waxaa jira suuq laba mid ah laba mid noqonaya ama suuqaas hoos buu soconayaa ama muxuu soconayaa kor suuqa trend market baa la yihahdaa xiisaddeena ugu horreysay falanqaynta baad si fiican ugu tagtaan noocyada suuqa loo qaybiyo waxay kala yihiin sida loo sawiro everything waa xiisadda ku xigtaa hadda waxay la fahantaa waxa la yidhaha support and resistance iyo sida loo sawiro waaye aan si kale kugu sheego suuqan waxaa la yidhahdaa suuq trend market baa la yidhahdaa waa suuqa kor soconaya ama suuqa hoos soconaya kuwan see u sawiraya support resistance-gooda see ku fahmaya meelaha laga celcelinayo iyo meelaha laga celcelinayo kii hore maxaan ku yidhi waxaa soo qaadanaysaa horizontal kana waxaa soo qaadan waxa la yidhahdo trend line kan maxaa sharciya in laba meelood oo siman aad isla heshid tusaale ahaan waa inaad halka ku beegtid talabaadna ku beegtid marka labadaas saas ku beegtid kor baa u qaadaysaa saas u qaadaysaa saasuu kugu sawiranya naga taatire waxaan kale maxaan ku yidhi waaye si kale haddana iyadoo kor laga sawira kutusaya waa inaad laba meelood waa inaad sintaa sidaas oo kale waa inaad laba meelood sintaa ma ujeedaa ama weekis ka sin ama body ka sin hadda halkaa waa laga celiyey halkaa waa laga celiyey halkaa waa laga celiyey sidoo halkan waa laga celiyey ma ujeedaa inta waa laga celiyey soo ma jeedid marka maxaan sawiray trend line maxaan ku sawiray trend market waa linekii uu ku soconayay trendku haddaan sawirayo support and resistance
horsan ranking suuqa noqonayana maxaan ku sawirayaa maxaan dhigayaa laba meelood oo siman waxaan raasinayaa laba meelood oo siman kadib waan dhigayaa tusaale ahaan saas kale aan dhigayaa waayahay halkan qaacido kala jirta supportku waxaa lagu oranaya halkan supportku resistant wuu noqdaa resistantigana support wuu noqdaa waxaan uga jeedaa halkan u fiirso waa halkan waa maxay qiimuhu kor buu ka yimid waa la celiyey support weeyaan hoos baa loo diiday haddana waa la diiday soo ma jeedid halkana eeg muxuu noqday kor buu aaday waa loo diiday labada jeer ma jeedaa markan waa support markana waa resistant macnaha qiimahan barayskani support uu noqon karaa resistant uu noqon karaa qiimuhu siisu hadduu adag yahay dhinacii loo dhaafaa dhinaca kaleba wax uu celiyaa qiimuhu support uu noqon karaa resistant uu noqon karaa waxaa kaloo muhiim ah inay la fahantaan shay la yidhahdo marka casharkeena ku xigay oo la yidhahdo break outku waa maxay marka break outku inuu dhaafo supportiga resistantiga hadda maxaan isticmaalnay horizontal line iyo trend line baan isticmaalnay maxaanu niri waa qiimaha ciidaha lacagta lahi ku ilaaliyaan uguna sameeyaan celcelis waaye sabagaani dhamaan bay ugu sameeyaan sabagaani dhamaan muxuu ahaa sabagaani waxaan ku sheegnay shaygu inuu bato qaaliyo kadibna baahidiisu yaraato maxaa dhacay marka waa la soo jebinaya si qiimihii qiimuhu qaali buu noqon moogtahay baahida waa yaraatay si qiimuhu jabo saasay sameynayaan marka waxay sameeyaan dowladahan hadda reer galbeedku lacagaha ku tarjiraan waxa yiraahdo interest rate ribay moogtahay lacag dulsaar ay leeyihiin marka si ay qiimuhu markuu xoog u kaco uu dhaafo supportigooda ama resistantigooda la dhaafo meeshii rabeen la dhaafo waxay sameeyaan hoos bay u soo celiyaan waxay sameeyaan xagga interest rate-ka bay ka dhaqmaan maxaa la sameynayaa lacagtii ribada ahayd dulsaarka ahayd ganacsatada dul saarayay baa la yaraynayaa marka la rabo qiimaha inuu kaco muxuu sameynaya qiimuhu marka dad badan baa lacag badan qaadanaya ganacsigii waa soconaya wixii baa kala soconaya dhaqaalihii hagaagaya sarifkii normal kusoo noqonaya hoos usoo dhacaya marka la doonayo la kicina maxaa la sameynayaa ribadii waxaa laga dhigayaa qaali lacagta soo gelisa bankiga mooyaane lacagba ka bixi mayso dad yar baa wax qaadanaya dadka badankooda qaadan maayaan sarifkii marka waxaa ku dhacaya u qaaliyoobaya qaabka noocaas iyagu u maamulaan marka haddaad fahamsan tahay waxa support resist laga wado qaabka looga wado exactly waa si waxan ula socon doontaa insha allah support resistance in badan bay kugu soo noqon doontaa waxaa kaloo support resistance inoo qabataa oo casharadeen dambe ku arki doontaan naqshada suuqa inoo sawirtaa suuqu naqshaduu leeyahay qaab buu u dhisan yahay qaabku u dhisan yahay bay inoo sheegaysaa hadduu suuqu saa u qaawan yahay waxba fahmi maysid laakiin marka aan suuqa lagugu sawiro support resistance lagugu sawiro ee aad saa u artiin halkaasaa lagugu sawiro lagu dhaho hoos buu kaas aadayaa kana kor buu aadayaa halkaa macnaha halkaas maxay noqonaysaa waxaad ogaanaysa waxa la yidhahdo halkaa waa laga celiyey halka maxaa filaysa in laga celiyo markuu qiimaha ka soo maro maxaa isugu ka imaanaya qiime halkan hoos laga celcelinayey iyo qiime laga celinayay kor maxaa ka dhacay halka waxa la yidhahdo break out waa kan haduu tegnay break out maxaa la yidhahdaa break out waa maxay break outku waa kan waa meel walba oo dhaafta meel walba oo dhaafta support resistantiga qiimaha la celin dhaafto dadkii marka qiimihii lagu ilaaliyo waxaa jirta maray bum ay dhaafaso maray dhaafasa jirta marka maxaa la yidhahdaa haddayba dhaaftaba markay saa u dhaafto maxaa loo yaqaanaa break out maxaa la jebiyey break out banaanka loo jebiyo weyaan break out banaanka maxaa loo jebiyey banaanka resistantigii wixii la celcelinayay qiimihii la celinayay qiimihii la celcelinayay tan iyo caawa tan iyo maanta tan iyo beryahan tan iyo isbuucyadan waxaan muddo dheer lama celcelin hadda tusaale ahaan hal mid aan tuso waxaa inta la celcelinayay hadda inta aad arkaysaa inta jeer la celiyay taariikh ahaan haddii la eego mooska lagu eegaya mooska xagga hoose wuu sawiraya xagga hoose maartaan meesha laga soo bilaabay halka laga celiyay goorma ahayd 2018 bishii 3/keedii markii ku xigtay haddana goorma loo diiday bishii 9/keedii markii ku xigtay goorma loo diiday 8/keedii markii ugu dambeysay goorma loo diiday 7 bishii 9aad goormuu jabsaday 1 bishii 11aad halkan waxay ahayd bishii 9aad macluumaad ku sameynaysaa in la gida waxaan in muddo qiimaha halkan dhaygan joogna laakiin halkan gidaarka hadda qiimaha muddo badan baa lagu ilaalinayay waaya
waad u tegi doontaan waad baran doontaan sida suuqa loo hormariyo marka supporters wuxuuna tarayaa kale wuxuuna tarayaa naqshad buu suuqa u sameeyaa hadda halkaa marka suuq saa halkaa uu ka yimid halkana uu ka yimid maxaa inoo tusay in loo dhinac ka yimid kuwan halkan muxuu inoo sameeyey saddex xagal maxaa la yidhahdaa waxan saddex xagal saddex xagalku waa calaamad inoo sheegaysa suuqani inuu kor aadayo wala socotaa halkan kor maxaa ujeedaan halkan maxaa ujeedaan madax baa la yidhahdaa halkaa eeg waa madax iyo garab iyo garab waa calaamad kale suuqa inoo sheegaysa inuu imaanayo hoos aadaya wax maxaa inoo sameynaya maxaa inoo sameynaysa waxa la yidhahdo supporters soo inoogu sameynaya trail line baa halkaa laga sawiraya trail lineka halkaa laga sawiro trail line baa halkaa lagu sawiraya trail lineku meeyi supporters sawiranaya trail linekii meeya lagu sawiranaya meesha wakaa igu sawiran ma ujeedaa trail line xaan kasoo qaaday trail lineka mar baan ku celinaya meesha kasoo qaaday eeg halkaas trail laga soo qaadaya maanta draw trail line ba ku qoran oo kusoo dhufanaysaa labada waxaa sharciya labada ugu hooseysa labada ugu horeeya inay siman yihiin baan ku hadda labada ugu horeeya inay siman yihiin baa sharciya waxa kale xagkaa ma gelin horizontal line waxaa sameynaya marka sawirayo mouse kana soo qaadanaya madaxana saaray eeg madax khasab mid kuwa kala la sinaanaya ma ujeedaa halkan maxaa inoo muuqday kii koowaad waa tan tii labaad waa tan maxaa sharciya in laba jeer laga celiyo iyo wixii ka badan laba jeer iyo eeg meelo fara badan baa la helaya markana waa la celiyey markaa waa la celiyey markaa waa la celiyey aduu laba jeer haddaad ku saxdid maaragtaa marar fara badan baa helaysaa qiimahaasaa loo celinayo waa haddaa laba jeer haddaan yareeyo meelo badan baa arkanaayo haddaan isaa yareeyo qiimihii hadda eeg meelkiin hadda sawirana waa kaa sar maahayn eeg halka waa laga celiyey halka waa laga celiyey konton meelood baa laga celiyey ma ujeedaa inta jeer qiimaha laga celiyey intaasoo jeer muxuu noqday support iyo resistant iyo waayo maxaan ku yidhi qiimuhu supportna wuu noqdaa resistant wuu noqdaa oo suu noqdaa halka kor markuu hadda ka imaanayey markuu halka kasoo jebiyey break out baa halka dhacay wuu jebiyey waa loo diiday markii loo diiday muxuu ahaa support floor buu ahaa waa qiimo hoos loo diiday in la dhaafo adkeed in la dhaafo mala socotaa oo la doonayey la celcelinayey wuu soo dhaafay haddana madaxuu saartay iyo sidan oo kale muxuu noqday resistancy halkaa inuu kor u dhaafaa la diidan yahay maxaan ku ogaaday hadda naqshada u samaysan labada garab iyo halkaa waxaan ku ogaaday madaxaas aan ka arkay dheer meesha ugu sokaysa waa garab iyo garab maxay ii sheegaysaa in hoos la aadayo way la fahantay maan jecel macnaha kanadiyan warkii ku yimid war fiican baa ka yimid hadduu war wacan ka yimaado kor bay u kacasa waa dheygii waxan aan ku joognaa kandhal walba maxaa jeclay waa la fahanteen maxay kow ina tusaan naqshadaha suuqa u dhisan yahay wayna tusaan oo hadda naqshada madaxa iyo labada garbood iyo saddex halkaa markiiba wayna tuseen maxay kaloo inoo sheegaan meelaha qiimuhu ka yahay meelaha la diidan yahay ee aan cayaar cayaar lagu dhaafi karin ujeedaa meelaha qiimaha laga celcelinayo oo aan ku xisaabtan hadda inta jeer isku dayey waa kow labo saddex afar shan dhowr iyo toban casho isku dayey waa kandhalkii maalin buu dhigmaa waa inay soo qaadana time frameyada kandhal maalin buu dhigmaa dadka signalada kale waxay weydiiyaan micnaheedu maxay noqonaysaa micnuhu maaha marka time frame lagu sheego 4 hour lagu soo qoro micnaheedu maaha inuu 4 saacadood soconayo micnaheedu waxa weeyaan meeshii laga soo diyaariyey waa kandhalkii muxuu dhigmayey 4 saa darteed laftigeedu waa inuu daahayo waa laga dareemayaa waayo kandhalkiiba 4 saac buu halkii kandhal 4 saac buu dhigmaa waa inay kulli waa zoom in iyo zoom out haddaan soo dhaweeyo haddaan fogeeyo micnaheedu waxa weeyaan bilaan joogaa muddo dheer baan joogaa haddaan soo dhaweeyana waa dhay mala socotaa waa zoom in iyo zoom out hal mar baan kusoo celinaya haddaan sawirayo horizontal line maxaa idin ku yidhi waxaan soo qaadanaya haddaan supporta sameynayo maxaan soo qaadanayaa horizontal lineka waa in 2 midh sameeyey halka 2 midh ay sameeyeen saasaan u saaraya dhag ma ujeedaa 2 midh way sanaadeen way saaray haddaan sawirayo suuq trend markada kor ama hoos socdaan maxaan soo qaadanaya trend line ka soo qaadanaya waayo waxba suuqyada noocu yahay kor inuu socdo inuu hoos socdo casharka uu ku xiga casharkan basic ee dhamaysanaya kan ka horeeya baan wax kala idin kala hadlaynba noocyada suuqa loo qaybiyo labada madax sida loo soo saarayo suuq wax lagu garanayo hoos aadayo qaabka wax loo yiraahdo sameeyaa oo in uu kala hooseeya si fiican casharadaas ku sharxi doonaa insha Allah casharkaas ku duwan doontaan halkaas hadda waxay la fahanteen qoriya waxa la support resistance jiraan iyo horizontal iyo drone lineka sida loo sawiro hadhowto in badan bay ku soo noqon doonaa waxaana baraad kala badan ku sameeysan insha Allah aad bay ku fududaan doonaa way halkan ka gudbaya waxaan u gudbaya waxa la risk management oo ah shay asna aad u muhiim ah intaan gudbin waxaan baranaynaa casharada inoo soo socdo wax ka baranayno waxaan baranaynaa luqadda suuqaas hoos u socdaa sababta ugu socdo
maxaan ku garanay inuu hoos socdo goormuu noqonay hadda maxaan ku yidhi naqshad baa ka samaystay inoo sheegaysa inuu kor aadayo marka waxa haddaad baratid suuqu meeshuu aadayo sababta uu aadayo waxa haddaad baratid adaa samaysanaya signaladaada adaa ku filnaanaya suuqa inaad ka shaqaysatid adaa gacantaada ku filnaanaya kaliya maxaa lagaa rabaa maskaxdaada deji sabir igula soco waaya waxaa jirta wax kaloo aad iyo aad iyo aad iyo aad u muhiima waxaa la yidhaha risk managementiga risk managementiga waxaa la yidhahdaa qaabka khatarta la iska ilaaliyo qaabka khatarta la iska ilaaliyo khatartu waa maxay haddii loos dhacayo suuqa dhinacaas lahayd hoos buu aadayaa hadduu kor yimid qaabkee buusan lacagteeda u saameynin waayo waa dhibka ugu badan ina haysta waxaa dad badan baa jira oo signal la qaadanayay tan iyo maalintay laga yaabaa qolka online galaa soo galeen adiga waxaa laga yaabaa laftigaaga inaad kamid tahay inaad muddo signal qaadanaysa ilaa haddana aad waxba ka faa'iidin waxaa laga yaabaa inaad leedahay isbuuci waxaan shaqeeyaa $100 $80 baan shaqeeyaa haddana maalinta u dambeysa ama isbuuca ku xiga wixii iga soo noqonayaan cilado noocaas in haystaa laga yaabaa wax kale ma waxaa yidhahdaa poor risk management waxay fahamsaneen risk management risk management waaba laba quriyaba waa laba shay waxa la yidhahdo boqolkiiba 1 ilaa 3 inaad xoolahaaga badala geshid iyo waxa la yidhahdo ruwaal raashin labadaas shay haddaad fahantaan waad fahansan tahay risk management lagu gaadi maayo suuqan adaa gaadaya macnaha suuqan kaa hor imaan maayo suuqan suuq maaha la yidhaahdo si dadka qaar aaminsan yihiin waa suuq dadku kas loo khasaariyo oo suuq khasaaro badan suuqa faa'iidadiisa ka badan khasaaradiisa boqolkiiba 95 dadku qofka aqoonta leh way faa'iidaan dadka ka ganacsada way neceb yihiin dadka khasaaraha badan waayo suuqan waxaa lagu wada hadlaa structure qaab dhismeed naqshadaha hadda tusay oo kala wada hadlaa saddexaga bal soo sameeya waxa la isfahmay kor la aadayo madaxii laba garbood bal soo sameeya waxa la isfahmay in hoos la aadayo ma fahantay qofkan waxa fahmay ma rabaan iyagu tusaale ahaan haddii suuqa hadda suuqyada kamid ah meherada hadii darsiin maalin gidi kaba iibiya maalinta haddii meherad kacdo maanta waa laga faa'iidaysanaya waa la xaraashaya exact beri haddii mid kale kacdana waa xaraash ka waran haddii isbuuc ama bil maalinba meherad kacso dee suuqu socon maayo waa xurmaya waayo qiimihiiba soo noqon maayo maalin midba xaraash midba xarash xolo jaban ka idinkun xaraash xolo jaban badan inay noqotaan lama doonayo oo dadka dhibtaan waay naftaadana dhibtid sidee u sameynaya labadan shay hadda aan xagga ku qoray number 1 xoolahaaga inaadan la gelin boqolkiiba 3 ka badan boqolkiiba 3 wax ka badan inaadan bedela gelin sidee boqolkiiba ilaa 1 ilaa 3 sidee uga dhigay u badan sidee uga dhigaya loss size ka aad isticmaalisid waxaan lagu xisaabiyaa wax la yiraahdo mfx ka soo qaad waxaas waa inaad xisaabin kartaa horta markii waa inaad gartaa stop loss ka meesha kugu yaala tirada kugu talana ku yaala kadibna waa inaad loss case kugu saxsan aad qaadataa xoolahaaga waxaan tusayaa sida inta loo sameeyo stop loss ka qoriga soo qaadaysa ila socda sida aad ku ogaanaysid boqolkiiba 3 aad xoolaha ugu ilaalinaysid baan tusayaa calculator shaqada in qaabilsan waxaan joognaa google halkan waxaad ku qorsaa position size calculator enter isaar sama maartan ka ay xagga daba kaga qoran tahay ma facebook kaasaan qaadanana kaasayna ku dhufanana kaasoo kan isticmaalo macna xagani halkan baan bari marka loo isticmaalo way halkan waxa ku qoran waa akoon currency-ga waa adigu lacagaha isticmaashid haddaad Europe joogtid oo euro isticmaashid haddaad Japan joogto yen tahay base-kaagu lacagta tahay waana gelisaa halkan waxaa la gelinaysaa waxa ku qoran account size-kaagi godkan baa laga rabaa inaad geliso account size-kaagi tusaale ahaan waxaa kugu shita $200 $200 halkan waxaa gelinaysaa waxaan ku ugu badnaan isticmaala boqolkiiba 3 ka soo qaad waxaan isticmaalayaa 3 halkan waxaa lagu yiri stop loss bbs-kaaga inta bib ee aad diyaar u tahay inaad lumisid ama signal lagu soo siiyo inta stop loss-kiisu yahay soo sheeg halkaas ku qoraysaa waad garanaysaa soo sheegaysid badanaa signalada badan waa la soo raaciyaa anagu signalada soo raacinaa haddii laakiin aan signal lagu soo raacin waxaad kala jaraysaa
tirada stoploska lagu siiyey iyo tirada lagu siiyey intriga meesha lagu yiri ka gal buy sell haddii ay tahay stoplos adoo meesha lagu yiri ka gal iyo tirada stoplos farqiga u dhexeeya baa soo qaadaysaa ka soo qaad wuxuu ahaa 40 halkan waxaan gelinayaa lacagtii baad dooranaysaa lacagaha tii lagu soo diray dooran ka soo qaad euro USD da weeyaan maxaad ku dhufanaysaa marka calculator maxaa kuu soo baxaya marka waxaa kuu soo baxaya dhowr shay maxaa kuu soo baxay kow horta lacagtan waa lacagta khasaaris $6 ba khasaaraysaa lagu yiri unitka ma baahnin waxaad iyo losseskaad isticmaalisid 0.015 isticmaal baa lagu yiri 0.015 isticmaal mar walba halkaa ugu badnaan waa inaad gelisaa 3% waaye su'aal baa timid adoo trade ku jira baa signal damba soo dhacay 200 baa ku jirtay signal baa soo dhacay labaad maxaa samaynaysaa lacagta 200 gelin maysid halkaa gelin maysid 200 waxaad gelinaysaa 200 oo laga jaray signalkii hore oo stoploska $6 ahaa $6 baad ka jaraysaa maxaa ku soo 196 halkan maxaa gelinaysaa hadhaaga halkana 3 ugu badnaan 3 2 ugu fiican halka gelinaysaa halkana bbskii kale baad gelinaysaa lacagta lagu soo dirana wataa halkaa waa in kaa soo baxdaa qiimaha waay magaciisana waa kaa saan usoo galana waan tusay dib baad ugu noqon doontaan insha allah waana sabkaraysan doontaan baarkiina ku sabkaraysan doontaan insha allah laakiin mar walba waa inaad xoolahaaga 3% ugu badnaan isticmaashaa saa darteed khasaari maysid $6 ka badan $6 ka badan haddaan 10% ka dhigo balaag waay waxaan tusayaa haddaan 10% ka dhigo waxaan khasaarayaa xoolahaaga 10% ka dhigo waxaan khasaarayaa halka haddaan 10 ka dhigo calculator leh $20 ba khasaaraysa 0.05 ku geliba ku wuli $20 ba khasaaraysa 5 jeer ka hor aad khasaartay $20 maalintaa waa imisa 5 ku dhuf waa $100 boqol baad weydi maku haysataa dhibaatada ku haysataa maku tahay maba taqaanin soo maaha waxaad kuu habboon waxaa lagu yidhahdaa $1 0.01 geli waa sax marar badan laakiin marar bay ku khaldantay haddii bbskaagu ka badan yihiin intaa way ku khaldantay marka adigu mar walba calculatorkan kaalay halkaa waxaad gelisaa lacagta currency-gaaga dalka lacagta baseka computerka serverkaaga kugu qoran anaga Soomaaliya dollar baa noogu qoran dalka joogta hadda euro tahay waxaad tahay geli hadhaaga lacagtaada akoonkaaga lacagta ku jirta geli 3% halkaa ka badan 2% ka badan halka inta stoploska ah ku xidh halkan lacagta ka dooro isla markaa reset ku soo baxa lacagta haddaad aqbali kartid qaado haddaan aqbali karin qaadan waxaadna gelinaysaa losseska ka soo baxa waa risk management-ga ugu fiican inaad 3% xoolaha ilaashatid waay shay kale waxaa la yidhahdaa ee ku fiican isna ku gaadinaya reward ratio good reward ratio waa maxay reward ratio wax kale ma lambarada hore 3 waxa weeyaan khasaar oo faa'iid tusaale fudaan si gaari baad wadataa waxaan kugu yiri waxaad joogtaa ka soo qaad magaalada joogtaa magaalooyin kamid ah waxaan kugu yiri ka soo qaad hadda waxaad joogtaa Hargeysa waxaan kugu yiri waxaad geysaa Burco ama garowe joogtaa Boosaaso baan ku waxaan joogtaa Kismaayo Beledweyne baan ku waay heshiis baan naga dhacay Soomaa adiga maxaa ka lumaya waqti shidaal maxaad u baahantahay wax la mid ah ama wax ka badan heshiis Soomaa halkan waa sidii xoolaha aad bedel gelisid iyo dadaalka ku galaya faa'iidada aad ka soo galaya waa inay la mid tahay ama inay ka badan tahay maxaan ka wadaa stop loss-ka bbska ku yaala haddii 40 bb yihiin oo $20 dhigmaan faa'iidada aad ka raadinaysid suuqaas leedahay aad heshid waa inay tahay mid la mid ah marka haddii la mid noqoto maxaa la yiraahdaa one of one ratio macnaheedu waxa weeyaan faa'iidada raadinayay iyo xoolihii aan khasaaraha ugu haddii intii khasaare dhacay aan khasaari lahaa aan khasaaraha ugu talagalay iyo xoolaha raadinayay waa same waa reward ratio horta ka yar lama ogola adigu ma ogolid dad gaar taksiila tahay ama dad wax kaliisid ama wax iibisid ka soo qaad waxaad iibisaa dhar
lagaa soo siiyey $7 buu shaarka ku fadhiyaa dee $5 iga siima ogolid maxaa ugu yaroo goshahay $7 inaad siisid soo ma inaad khasaartay miyaa ogoshahay xoolaha laftaada la galo waa may waaye dad gaarigan ku lahaa wada kula magaalada kale gee aan ku idhaahdo shaahun baan ku qaaday ama aniga shaahun baan ku qaaday qadadan ku qaaday kaalayo qaad shidaal waxaas wax shidaal baa kaa baxaya waqti baa kaa baxaya wardeena tag warnas waxa kaa baxaya qiyaasas ay wax ku soo gelaya waxa kaa baxaya iyo wax soo gelaya qiyaasas wax ka yar horta ma ogolid wax la mida wada gosh haddaan ku weynaado ixsaan igu qaad in shidaalkan aan iska bixinaya cuntada aan kaasi bixinaya kaalayo ixsaan igu qaad wada golaan karta innaas aqoon ka hadlaya axsaankii iyo wanaagga iyo wax isku qabtaa waaye 1/1 baa yidhahdaa wixii wax lamid ah inaad suuq ahaan tusaale ahaan take profitka ugu dambeeya lasoo qoray haddii 40 bib ku jiro stop losskuna hadduu 40 ku jiro same 1/1 raashi yaraha dad badan baa isticmaala kacdoysaan uma isticmaalo waaye taasoo qodob kalabaad waxaa dhahdaa 1/2 raashiya 1/2 waa maxay 1/2 waxa weeyaan waxaad inta khasaaraha loogu dhigay inta stop losska bibiska loo dhigay laba jibaarkeed baa faa'iido lagu raadinaya 20 bib baa lagu yiri wan khasaaro lagu taagalay maxaana faa'iidada raadinaysaa ka raadinaysaa suuqa waa maxay waa 40 laba jeer bay ku soo laabantaa exactly good for raashiya weeyaan tii hore maxay ahayd waa raashiya caadi waa sax bay tanna waa good macnaheedu mutaamiciin waa maxay macnaheedu tii hore waxa weeyaan 5 jeer haddii 10 jeer aad trade qaadatay 5 jeer aad guuldareysatay 5 aad guuleysatay tii hore macnaheedu waxay ahayd suuqa waad kala joogtaan suuqa waad kala joogtaan waayo 5 jeer baad gashay 5tii jeer min $10 ba waxaad ka dhigatay faa'iido min $10 khasaare ahayd maxaa kuu soo baxay $50 baad heshay maxaadna khasaartay kontonkiiba 00 maalintaa suuqa waad kala baxdeen xoolahaagii looma soo dhicin alxamdulilah waa ruway raashiya fiican haddaad ka sii yareen lahayd dibadaada la geli lahaa ileen talabaad waa maxay waxaa tiri min $20 aan faa'iido $10 khasaare aan ogolaaday waayo sidii oo kale 5 jeer baad khasaartay 5 jeerna waad faa'iiday waayo 5 ku dhufo 5 jeer aad faa'iiday 20 ku dhufo waa imisa $100 5 khasaartay 10 ku dhufo $50 maxaad adigu suuqa faa'iido joogtaa $50 baa faa'iido joogtaa $50 baad faa'iido la joogtaa exactly perfect baad good baad perfect baad good baad saddexaad waxa weeyaan marka ruwa raashiya saddexaad waxa marka saddexaadna waxa weeyaan xoolaha la gelisid badda saddex jibaarkeeda ka raadsid saddex jibaarkeeda ka raadsid waa perfect sida ugu fiican waxa weeyaan taa micnaheedu waa adoo leh suuqa haddii 10 jeer aan galo oo aan 7 jeer khasaaro 2 jeer aan 2 jeer aan faa'iido wato ama tusaale hore aan kugu dhigo suuqa 5 haddaa gashay 5 faa'iidid macnaheedu waa maxay haddaad $10 khasaaraha u dhigtay $30 baa faa'iido u raadinaysaa waaye macnaheedu waxa weeye 5 jeer baad faa'iiday ku dhufo 5tii 10 baad u dhigtay 3 ku dhufo waa imisa min 30 oo $150 baad haysataa 5 khasaartay maxay ahayd $50 ka jar $100 baa faa'iido joogtaa tan waxay kaga sii fiican tahay kuwa adoo khasaaraha ugu badan yahay baad faa'iido joogaysaa oo sidee 10 jeer baad gashay haye 7 jeer baad khasaartay 7 jeer ku dhufo 10 $70 baad khasaartay 2 jeer baad faa'iiday 2 jeer 30 ku dhufo ilankii waa 3 jeer baad jibaartay 30 waxaan 3 soo hadhay Soomaa 3 ku dhufo 30kii 90 waxa ka jirta 70 20 adaa faa'iido jooga waa perfect waa sida ugu fiican mar quli lagu gaadi maayo khasaaraha uga batay ba faa'iido badan marka waxa yiraahdaa ruwa raashiya waa inaad soo cabirtaa adigu hadalka guud waxa weeye inaad soo cabirtid waxaad helaysid iyo waxaad waayaysid waxaad xisaabinaysaa stop bibiska meeshii ama sidii hore aan kugu sheegay xisaabinaysaa ama masaradii aan baranay baad ku xisaabin masaradii aan baranay baad ku xisaabin oo sidii waad u qaban ama labadan tiraad kala jari labada tirada isu jiro stop loss iyo stop loss iyo interigu labada tirada isu jiraan baad kala jaraysaa way fududahay si aad waxa ula qabsataan signal waxa jirta abis forex signals ku qora mobiladina abiskiina la soo dega signalada ku baraadkal garay ilama barateen sida band orders loo sameeyo baraadkal ku sameeyo xisaabta iyo sida sell loo sameeyo buy sell iyo stop waxa aad bad ula qabsanaysaa markiiba si aad markiiba hore ugu socotid wana baraadkal badan sameeysaa hatta baraadkal badan sameeysid dhaqaaqa aad u fiicnaanaya kuwa raashi wala fahanteen
labadaas shay haddaad maamushid haddii aad xoolaha bedel la gashaa boqolkiiba 3 uusan ka badnayn isla markaa riwaar raashido ay fiican tahay oo 1 iska daayo 1 of 2 aad ugu yar tahay weligaa adaa faa'iido qabaya weligaa adaa faa'iido qabaya waay waxaan ku sii darayaa iska sii gabagabo laba shay oo oo suuqan horumar lagu gaaro only two thing baa lagu gaaraa labada shay waa maxay ka koowaad waxa weeye signal aad hubtid wax ka badan 70 jeer haddaad adigu signal samaysanaysid waa inay yihiin waxaad hubtid high probability qaata signal aad waxaad gashaa signal aad 5 dhinac ku yidhid waa inaad yahay boqolkiiba 70 wax ka badan haddii ku yidhaa signal aad hubtid haddaad geshid maasha allah horumar baa weligaa gaaraysaa dhinaca labaad waxaad u qaataa khatarta ama risk management waxaad u qaataa sidii inaad khasaaraysid boqolkiiba 8 sidii qof khasaare ka baqayo isla boqolkiiba 8 khasaaraysa waa inaad u qaataa oo aad risk management-ga fiican yahay boqolkiiba 2 boqolkiiba 1 war haddaan khasaarayo ma ogoli boqolkiiba 1 ka badan boqolkiiba 2 ka badan khasaare ma ogoli adoo ka fikiraya ma qaataa sidoo kale haddaan khasaarayo faa'iido waxaan ku khasaarayo 10 jeer baa maanta gelayahay waa inay badataa khasaarahaygu inuu yaraada faa'iido ka badataa waata keentay dadku inay signals waa halkeed ka lahaa qofku maanta signalo badan u qaadanaya kadib maxaa dhacsa TB1 ka bis buu qaataa qofkani TB1 waa 15 bib TB3 TB4 ma gaadho maalin walba TB1 ku urursadaa saa darteed 5 jeer markuu TB1 qaato wuxuu helayaa ama 4 jeer markuu qaato muxuu helayaa 60 bib waxaa laga yaabaa soloskiin 50 bib yahay hal jeer ama laba jeer isagoo 6 jeer guulaystay hal mar solos ka qaraacdo waxa ma haystaba ama ma yaqaan sida TB1 ka TB2 ka sidaan xalay baranay sida loo isticmaalo ama muhiimadu ma arko TB1 ka ula cararaya waxa kala dhacda wixii faa'iido wada haduu faa'iido arkaba close wili qofku ordaya close buu ka ordaya maxaa dhacsa stoplasska way xamilaya dadku dabeecadda garamaya waxa u badan arka weeyaan khasaaraha way xamilaya xukunanaya way soo noqonaya waxa laga yaabaa stoplas ka saaraba tayo profitka markuu faa'iido arkana uu ka cararay markiiba iga saar labada waa khalad stoplasska iyo take profitka labada waa inaan min aad ka tagin waayo stoplasska micnihiisu waxa weeyaan waa meesha qof aqoon leh hadduu soo dhigay ama meel fiican ka keentay micnihiisu waxa weeyaan halka hadduu gaadho ka badan uma sii baahnay halka iga saar hadduuba stoplasska gaadhin soo noqdo way adag tahayba qofkii soo diray baa rashin ka qabi lahaa inuu soo noqon lahaa oo meel ka hoos dhigi lahaa qodob kale waxa weeyaan dadka khasaaraadka badan waxa weeyaan signal walba signalkaagi ma waana halkan ku sheegaya waayo opportunity walba every opportunity is not yours signal walba signalkaagi ma chance walba chance-kaagi ma haddaad signal samaysata aad tahay content signal oo fiican meelo buy iyo sell ku fiican ku soo garaya waa inaad risk management-gaaga cabirtaa waa inaad cabirtaa high probability-gaaga boqolkiiba 70 ka badan ma halkan ku guuleysanaya iska galma khasaar la kulmasa khasaar badan baa la kulmasa signal walba soo dhacana content jeer hasa signalkaaga ma iska cabir riwaar raashidiisa cabir imsaan faa'iidaya imsaan khasaaraya sidaadaba hadda 1 of 2 ugu yaraan aad ka soo degin well ama 1 of 1 ku ilaalisid aduu adaa isqaana 1 of 3 signal walba iska cabir inta la khasaar inta kale hadhowto ugu dambeynta qofku guusha joogaya waa adiga take brieftada 1 2 3 4 lix hadii la soo dhigo lixda ka tagay lix baan soo qori jiray lixda la soo dhigo mid ha ka tagay waxa ku tagay stoplasska soo raado mar walba qaabka xalidii ku sheegay soo raado markuu 1ka ku qaado intriga soo guur meesha ka soo guur markuu 2ka qaado soo guur ma 2 haduu ku qaado 3 ma ku qaado 1ka soo guur 4 ku qaado 2ka soo guur xoolaha badda ku jira ma waxay waxa la yaaba oo aad u arkaa isagoo TB1 ka qaaday hadana qof kulana waa khasaaray khaladkaas ka cabdu lama ogola way qodobka ku soo waxa la yiraahdo macalinka aamin kamid ah maqlay noloshu ma lahan loss waxa leedahay leen iyo qofka xisaabtamaya noloshu dhibaato badan ku imaanaysa wax badan filim ba ku imaanaya garab badan suugaysa wax garabka ka baxaya shax qurux badan wax qurux badan ku socdo suuqa daba rogaya kunta jeer ba isku dayaysan inaad hagaajisid no sharaftaada magacaaga yaa wax noqoto waxa leedahay leen weyn ku noqoto wax ka barata oo hore u socota oo khaladkina aad ku dhicin oo kale isla markaan wax ka sii barata loser ma jiro loserku waa qof qostay isdhiibay inaga diinahana loser ma ogolin diinteenu wax loser yiraahdo malaha imtixaanka dunida wanaad dhawarkaaga saarta dad waalid iyo walaalihi dad fiican kula qaadiyo leedahana waa alxamdulillah wax ka fiican aad waalidka ku nool iyo kula qaadanayo dadkaaga asxaabtaada turkaana ma jirto marka adiga waxa laga rabaa inaad noqon mar quriyo loser aad noqon oo mar walba leen aad noqotid lacagta waaysid dhibaato kala dunida wax walba ku noqoto leenin
inay nolosha iyo dadka iyo nolosha ku barto nolosha iyo dadka ku barto learn and earn baro kadib ka faa'iidayso baro ka faa'iidayso baro ka faa'iidayso halkana waa same suuqan khasaara ku dhacay maanta iyo beri iyo saadama khasaara saad ku xigta khasaara saad sabs ka qaracaya learn wana taqana waa uu kaaga qaracay iskaga sii jir ma in halka waxaan ugu soo dhamaaday casharadeennii basic ah waxaan caawa wixii ka dambeeya waxaan gelaynaa falaqaynta waad soo gelaysaa falaqaynta waa maxay caawa wixii ka dambeeya waxaa soo gelaysaan qaabka suuqa loo akhriyo qaabka suuqan loo akhriyo sababtuu saa ugu socday halka waaday sababtuu xaggan waaday haddii aad qaabka suuqa loo akhriyo barataan qaabab fiican baan idin barayaa insha allah hadda waan dhameeyey wixii batniska la yidhahdo waa dhameeyey oo ah naqshadaha kadib way duuban yihiin naqshadaha la yidhahdo madaxa naqshadaha hoose batnis baa la yidhahdaa waa madaxii labada garbood saddex xagalka naqshadaa la yidhahdaa halka maartaan laba jeer buu taabtay korka waxaa naqshadaa la yidhahdaa naqshadaha yidhahda waan dhameeyey beri casharka hadda casharka wixii aan duubi doonaa waa casharka sideedaad falanqaynta iyada way faa la yidhahdaa idna waa qaab suuqa u dhaqaaqo ilaa wax ka badan ilaa 800 900 laga yaabo inuu usbuucaas oo dhan qaabku haddaad heshid qaabka uu meesha ka bilaabmay muddo dheer lala socon karo weeyaan waxaan ku xijinaa waxa la yidhahdo harmonic waa qaab iyana naqshado kale oo suuqu sameeyo oo waxa la yidhahdo fibonacci ku sameeyo casharada dambe ku arki doontaan markaa kadib waxaan geli doonaa istiraatiijiyooyinka suuqa lagu galo saddex cashar baan isleeyahay aad kusoo goobtid baad ka dhiman saddex afar cashar baan isleeyahay san kaaga badan inta falanqaynta ka dhiman akhriska suuqa inta ka dhiman kadib waxaan geli doonaa advancedka oo ah sidii aan idinku samayn lahaa istiraatiijiya kuwaan isticmaala aan idinku fududayn lahaa oo suuqa u geli lahaydeen halkan hadday la soo gaadhay meel fiican baa soo gaadhay halkan iyo jabin hore soo soco wixii dambe hadda 7 cashar kala duwan 20 daqiiqo weeyaan aad baan waqtiga u yareynayay hadda basic way noqotay oo ku khasbtay oo ku faraxsanahay waxaan isku dayayaa inta ka horeysa isniinta intaysan suuqa furmin inaan dhameeyo casharada intermediate inaan dhameeyo wixii suuqa u furmo in istiraatiijiyooyinkii suuqa looga shaqeysto soo galo aad baan idin salaamayaa dhammaan walaalahan kale cilmigan u baahan ama dadka forex ku jira ee aan weli fahmin wax badan kamid ah u sii share garee u gee idinkuna waxaad garan weydaan halka hoose comment soo qora insha allah waan idinka soo jawaabaya aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh